25 Oktoobar sanadkii 1944 nin ayaa dusha sare badda uga soo baxay isaguna indhaha si degdeg ugu qabtay intii kale ee ka badbaaday gujiskoodii markii ay istiriyeen ay suubiyeen inta qof ay ku nool yihiin waxay indhahooda u direen darafyada ceerka iyo baddaba iyaguna raadinaya meel u dhow oo ay dabaashaan laakiinse waxay indhahoodu qabteen ayaa qalbigooda argagax ku beeray markaas ayayna xaqiiqsadeen in maalmaha u dhiman noloshoodu waaba haddii ay sii noolaadaan ay noqon doonaan maalmo sileec iyo naxdin badnaan doonaa tanina waa sheekadoodii argagaxa lahayd haddaba dadka naxdinta u nugul waxaa lagula talinayaa inay si taxadar leh ku dhegaystaan muuqaalkan horaantii afartameeyadii dunidu waxaa mar kala dhex maray dagaalweyne baahsan mid ka mid a fagaarayaashii ugu muhiimsanaa ee lagu kala baxayna waxay ahayd badweynta basifika goobtaasi dagaalku waxa uu ku fidayey kumanaan maylo badweyna laga soo bilaabo kaymaha Guinea ilaa xeebaha Iwo Jima ee dalka Japan dagaalku waxa uu badnaa dusha sare ee badda marka loo eego dhulka beriga cidda badda xukunta ayaana inta badan jaangoynaysay guusha iyo guuldarrada inkasta oo maraakiibta waaweyn ee dagaalka iyo kuwa diyaaradaha xambaaray haayeen xilligaasi kuwa indhaha caalamku soo wada eegayeen haddana jabkii weynaa ee gaadhay dalka Japan waxaa dhab ahaantii guuldarrada tuurta u saaray waxay ahaayeen gujisyada badda hoostooda ka dagaalama ciidanka badda ee Maraykanku waxay ku dhawaad 300 oo gujis ku joogeen badweynta Basifika waxay noqdeen cududii qarsooneed ee weeqday awoodii Japan ay ku sii wadi lahayd dagaalka amarka la siiyey badmaaxintu waxa uu ahaa inay qoosiyaan markab kasta oo sidii cunto shidaal hub ama askar kuwaasoo ahaa halbowlaha ay ku taagneyd boqortooyada Japan gujisyada Maraykanku guul weyn ayay ka soo hooyeen hawshaasi markii uu dagaalku sii dhamaanayna waxay burburiyeen ku dhawaad 5 milyan oo tan oo maraakiibta Japan oo ay ku jiraan 1,100 markab oo ganacsi iyo 200 oo markab oo dagaal laakiin guushaasi waxay ugu kacday qiimo aad u adag Maraykanka oo aan lacag kaliya ahayn balse nafo badan ku baxeen shaqada gujisku waxay ka mid tahay hawlaha ugu khatarta badan ee ciidanka badda muddadii dagaalku socday 52 gujis oo Maraykan ayaa badda ku lumay waxaana la dhintay in ka badan 3,500 badmaaxi howlgallada ilaalada waxay inta badan qaadan jireen bilooyin iyagoo ugu jira xaalado kulayl iyo cidhiidhiya oo u dheertay mugdiga badweynta hoosteeda haysanna wax ballanqaada oo ku saabsan in nabad lagu soo laabanayo marka ay maraakiibta cadowga u soo dhawaadeen gujiska waxa keliya ay gujiska samayn karayay waxay ahayd inuu matooradiisa demiyo aamusnaan buuxdan oo galo uuna rajeeyo in madaafiicda lagu soo tuuraya ay ku qarxaan meel ka fog gujiska si uga badbaadaan inuu soo gaadho waxyeelo culusi waxaase midaasi kasii darnaydba khatarta ugu weyn ay wajahayeen mar waliba maysan ahaynba mid ka imin jirtayba cadowga dusha sare ka muuqde ee mararka qaarkood khatarta ugu weyn ee ka baqi jireenba waxay ahayd in gantaaladooda torbiidaha laftarkoodu ayagu ganeenay tuureen ay dib ugu soo noqdaan horaantii dagaalka gantaalada Maraykanku waxay laayeen cillado badan oo dhanka farsamada qaarkood waxay ku qarxi jireen koor intaysan gaadhinba bartilmaameedkooda kuwa kalena marnaba maysan qarxi jirinba waxa ka sii darnaaba kuwaasi marka la gano dib ayay ugu soo kala wareegi jireen gujiskiisa ganay tusaale ahaan gujiskii USS Talubo waxa sanadkii 1944 qoosiyey mid ka mid ah gantaaladiisii dhanka kale gujiskan USS Tank ee muuqaalkiinan maanta quseeyo waxa uu qayb ka ah jil cusub oo gujisyada Maraykanku dhisaya oo lagu talagalay inay dhex jibaaxaan biyaha cadowga ee fogfog waxa uu mid dheereeya xoog badan loona naqshadeeyay markaasi howlgallada ilaalada ee muddada dheer qaata isaguna markaasi xambaari karayay 24 gantaal oo torbiida USS Tank dherarkiisu waxa uu mid in yarun ka dheer 9 mitir waxa uu ku shaqaynayay matooro isugu jira naafto iyo koronto kuwaasoo u saamaxayay inay dusha sare ee badda ay ku socdaan xawaare dhan 20 knots haddaynu si kale u dhignana 37 kilomitir waxa uu ka tirsanaa haddaba gujiskani gujisyada loo yaqaano Balo Class oo halaf dhabarta ciidanka badda ee aagga Basifika haddaba kabtanka gujiskani waday waxa uu nin lagu magacaabi jiray Richard Okene oo haruga cadda dagaalada badda hoosteeda looga bartay laguna tirin jiray saraakiisha ugu xariifsan ee ciidanka badda ku jiray waqti xaadirkaasi nolosha ka jirta daba gujiskan USS Tank sida gujisyada kale ee dagaalku waxay run ahaantii mid aad u adag oo silix badan gujisku waxa uu qaadi karayay qiyaastii 90 nin kuwaas
kuwaasoo iskugu dhex habaysan meel yaroo cidhiidhi ah oo ay ka buuxaan mashiino aan marnaba istaagin. ma jirin wax u dhexeeyey goobtooda shaqada iyo meeshay seexanayaan. urta naafatada, dhididka iyo birta ayaa mar waliba hawada ku jiray. inkastoo ay intaasoo dhib ah bay jirtay, haddana niyadda badmaaxinta Tang waxay ahayd mid aad u saraysa oo lala yaabo. shaqaaluhu waxay aad u aaminsaneen kabsankooda wadi gujiskooda iyo midboodba midka kale. taas ayaana ahayd dhab ahaantiiba sirta guusha ee Tang. hoggaanka Richard awgiis, gujiska Tang waxa uu mutaystay bilada sharafeedyo ah qaar aad u sareeya, waxaanu noqday mid ka mid a gujisyadii ugu magaca weynaa ee dagaalkaasi ka qayb qaatay. wax walba waxay ka soo bilaabeen howlgalkii ugu horeeyey ee uu qaaday bishii Janaayo ee sanadkii 1944. sida gujis kasta oo cusub, Tang iyo shaqaalihiisu waxay u baahnaayeen in ismuujiyaan oo caddeeyaan awoodooda. howlgal caadi ah oo badda Pacifiga laga fulinayo waxa uu qaadan jiray qiyaastii 2 bilood, taasuna ku xidhnaydba inta uu sii hayn karay markaasi shidaalku iyo gantaaladu. howlgal kasta waxa uu ka dhignaa kumanaan mayl oo laga soo safrayo saldhigga, kadibna laisku dayayo in marka hore la weeraro, kadibna lagu dhex dhoonto biyaha hoostooda ka hor intaysan maraakiibta ilaaladahi aysan helin oo aysan burburin. guusha gujisyada waxaa lagu qiyaasi jiray tirada maraakiibta la qoosiyey iyo wadarta miisaanka maraakiibta cadowga ee la burburiyey. howlgalkiisii ugu horeeyey, Tang waxa uu muujiyey waxqabad aad u sareeya. waxa uu qoosiyey 5 markab oo cadowgu leeyahay, waxaanu si toosa ugu dhuftay qiyaastii 2 ka mid ah maraakiibtii 3 gantaalo u ganay. xaaladii geesinimada lahaa ee Richard way shaqeeyeen, natiijaduna waxay ahayd mid iska cad. hal habeen gudihiis, Tang waxa uu ku noqday mid ka mid gujisyadii ugu waxtarka badnaa ee ciidanka badda. howlgalkii labaad wuxuu ahaa mid ka degan kii hore, laakiinse waxa uu muujiyey dhinac kale oo muhiim ah oo ka mid ah hoggaanka Richard. markan Tang waxaa loo xil saaray howlgallada badbaadinta lifeguard duty meel u dhow jasiiradda aadka loo ilaaliyo ee loo yaqaano Chuuk. halkaas Tang waxa uu dhowr toddobaad ku qaatay heegan uu ku jiro badbaadinta duuliyaasha Maraykanka ee diyaaradahooda badda dhexdeeda lagu soo riday. howlgalkaasi waxa uu noqday mid guul weyn ku dhammaaday. markii uu Tang uu saldhigga ku soo laabtay, shaqaaluhu waxay biyaha ka soo saareen 22 duuliyaal, kuwaasna ku dhiman lahaa midowga badweynta. si kastaba ahaatee, howlgalkii saddexaad ee Tang waxa uu ahaa kii dhab ahaantii magaciisa kor u qaaday, isagoona ka dhex dagaalamaya badda Shiinaha ee bari iyo inta u dhexaysa badda Huruudda ama Jaalaha. waxa uu weerar ba'an ku qaaday marinadii saadka ee maraakiibtii Jabaan. kolonyo dhan ayaana la burburiyey. maraakiibtii shidaalka sidina waa la qarxiyey. maraakiib waaweyn oo xamuulahna daqiiqada gudahood ayaa lagu qoosiyey. hal maalin oo bishii Juun ah, Tang waxa uu qoosiyey 4 markaba, taasuna ahayd guul ay gujisyada aadka u yaryaray gaadheen abid midii ugu weynayd. markii howlgalkaas lasoo afjaray, Richard iyo kooxdiisu waxay qoosiyeen 10 markab oo culayskooda guud ka badan yahay 39,000 oo tan. dabayaaqadii xagaagaas, howlgalkii afraad ayuu galay, sanadkuna waa 1944. Tang waxa uu ku dhiiraday inuu ka howlgalo meel aad ugu dhow xeebaha Jabaan laftarkooda. goobtaas oo ahayd meel ay gujisyada badankoodu aad uga baqi jireen. biyaha badda ee halkaasi maysan ahayn qaar ay qotadoodu dheer tahay, waxaana si adeeg u waardiyeynayay maraakiibta ilaalada ee Jabaan ay ku rakiban yihiin qalabka lagu baadho biyaha hoostooda ee loo yaqaano soonarka. 11 bishii August, Tang waxa uu dhexda ka helay kolonyo yar oo ka kooban markab xamuul ah iyo 2 markab oo kale oo wehelinaya oo ilaalo u ah. Richard waxa uu isku dabariday weerarkiisii, waxaanu ku riday 3 gantaal markabkii weynaa, 2na kuwii kale. mid ka mid ah gantaaladii ayaa durtabo ku dhacay qolka kuleeliyaha ee markabkii weynaa ee xamuulka ahaa, taasuna dhalisay qarax baaxad leh oo cirkiis ku shareeray. gujiskii Tang ayaa durtadii badda hoos u qoosay, iyadoona maraakiibtii ilaalada ee Jabaan ay u soo dhowaanayeen. waxa uu halkaasi ku qaatay 38 daqiiqo oo ay dusha kaga soo daadanayeen madaafiicda badda hoosteeda loogu talagalay ka hor intuusan si taxadar leh kor ugu soo bixin, si uu diiradda gujiska ama loo yaqaano beriskoobka uga daawado burburka uu geystay. inta uu leegyahay markii ay ahayd dayrtii 1944, Tang waxa uu qabtay wax ka badan inta ay gujisyada badankoodu qabteen dagaalka oo dhan. si kastaba ha ahaatee, guushaasi weyn kamaysan dhigin Tang mid nabad galay. xitaa
gujiska ugu fiican waxaa lagu burburin karayay ilbiriqsiga gudahooda. howlgalkooda xiga waxa uu shaqaalaha iyo kabtangooda ku riixi lahaa biyaha ugu khatarta badan ee badweynta Pacifica. kadib markii si degdega loo soo dayactiray laguna soo raraystahay, Tang waxa uu ka ambabaxay saldhigga Pearl Harbor 24 Sebtembar 1944 isagoona u ambabaxay howlgalkiisii shanaad. meesha uu howlgalku ku dhacay waxay ahayd marinka cidhiidhiga ee Formosa oo u dhexeeya Taiwan iyo Shiinaha, waana goob kale oo ay badmaaxinta gujisku aad uga baqaan. maraakiibta burburiyaasha ee dagaalka ee Japan si fiican ayay u yaqaaneen aaggan. biyuhuna waxay ahaayeen qaar saafiya, meelo badana qotada biyuhu waxay ka hooseeyeen 200 fiid ama 61 mitir. biyaha qotada dheer bambooyinka badda hoosteeda loogu talagalay waxaa laga yaabaa inay gujiska ruuxaanuun iyagoo aan wax weyn gaadhsiinba, laakiinse biyaha ay qotadoodu gaaban tahay ee maranka Formosa haddii bambadu ku qaraxdo meel u dhow gujiska dhab ahaantii way kala dhantaali kartaa. dhowr toddobaad kadib laga soo bilaabo 10 Oktoobar, Tang waxa uu bilaabay taxano weeraro ba'an ah oo uu ku qaaday kolonyo ka mid ah maraakiibta Japan. habeenimidkii 24 Oktoobar, gujisku waxa uu kor uga soo baxay badda korkeeda, mise waxa uu dhexda uga jiraa kolonyo aad u ballaadhan oo ka kooban qiyaastii 30 markab, isagoona si isdaba jooga ugu riday gantaalo. weerarkaasi waxa uu sababay inuu qoosiyo 13 markab, taasoo noqotay rikoodh taariikhiya oo hal gujis uu ku fuliyo hal weerar gudihiis. inkasta oo halista iyo jahwareerku aad u weynaa dhici karaysana inay waxyeelo soo gaadhsiiyaan maraakiibta cadowgu, haddana Tang si nabada ayuu uga soo baxay goobta isaga oo aan haba yaraatee wax dhaawaca qabin. habeenkii xigay mar kale ayuu weerar qaaday, waxaanuu quusiyey 2 markab oo kale oo xamuula ka hor intaanu dib u quusin hirarka biyaha hoostooda. saacado yar kadib 2:15 habeenimo 25 Oktoobar, Tang waxa uu arkay markab xamuula oo Japan leedahay oo dhaawaca, kaasoo iska sabeynayay meel u dhow jasiiradda Tornabos. xilligaasi badmaaxintu waxay ahaayeen kuwo aad u daalan kadib markii ay 2 habeen ugu dambeysay oo dhan ay ku mashquulsanaayeen weerarada maraakiibta iyo ka cararka rasaasta cadowga. waxaa keliya ay ku soconayeen wuxuu ahaa kiniiniga daroogada ee askarta la siiyo xilliga dagaalada ee ka biya xanuunka iyo daalka ee loo yaqaano Underlin. laakiinse Richard kuma uusan talagelin inuu dib u dhigto 2 gantaal ee u dambeeyey, isagoo eegaya haddaba xaaladda ay ku jiraan badmaaxintu. waxa uu go'aansaday inay weli xoog u hayaan inay qaadaan halkii weerar ee ugu dambeeyey. caadiyan Richard waxa uu iska ilaalin jiray inuu soo dhowaado maraakiibta cadowga markuu gantaalada ku ridayo, waxaanu u jirsan jiray qiyaastii 1000 yaard ama 900 mitir iyo in ka badanba. laakiinse markabkan cadowga aad buu dhaawacnaa, taas ayaana keentay in loo arko inuusan wax khatara ku hayn gujiska. Tang waxa uu soo dhawaaday ilaa 700 yaard, kadibna waxa uu damiyey matooradiisii. gujisyada badiya iyagoo socda ay gantaalada tuuraan si ay cadowga ugu adkaato inuu ogaado meesha uu joogo. laakiinse markan Richard waxa uu rabay inuu si dhab u haleelo bartilmaameedkiisa isagoon hal qiyaasna khasaarin. muusan rabinba inuu khasaariyo midkoodna labadaasi gantaal ee u dambeeya ee u hadhay. marka uu amarka bixiyey gantaalkii 23aad ee howlgalka ayaa si habsami leh uga baxay dhuunta. muddo yar kadibna waxa uu ku qarxay markabkii xamuulka ee Japan, kaasuna sidii qiyaastii 5,000 oo askari oo Jabaaniis ah, waxaanu ka haleelay qaybta hoose ee xudunta. qaraxaasi ayaa markabkii sii burburiyey. markii haddaba ay baraskoobka ama diiradii gujiska ay wax ka eegeen, badmaaxintu waxay arkeen dab iyo uuro cirka isku shareertay, laakiinse weli markabku umuusan muuqan mid quusaya. markaas ayuuna Richard amray in la rido gantaalkii ugu dambeeyeyna. wixii intaasi ka dambeeyey waxay galeen qarowgii ugu xumaa ee badmaaxe gujisa oo loo kulmi karo. gantaalka markii la ridiba durtadiiba waxa uu dusha uga soo baxay biyaha, waxaanuu bilaabay inuu ruxmo. kadibna si kadisa ayuu dhinaca bidixda ugu soo weecday. goobo weyn ayuuna biyaha ku sameeyey, isagoona dib ugu soo laabtay dhinacii gujiskii Tang ee markiisii hore isaga riday. Richard ayaa ku qayliye amara in matoorada gujiska gadaal loo celiyo, gujiskana si xoog leh dhinaca bidixda loogu weeciyo.
jiro isagoona si nafla caariya isugu dayay inuu baxsado laakiinse gujiska Tang wax fursada muusan haysan 20 ilbiriqsiyo kaliya markii uu gantaalku ka baxay dhuuntiisa waxa uu si daran ugu dhacay qaybta dambe ee gujiska gaar ahaan meel u dhow agagaarka qolka hagidda qaraxan weyn ayaana gujiska kala dhantaalay waxaanu raggii dhex joogay si naxariis la'aan ah ugu tuuray oo ula dhacay gidaarada gujiska ee birta ka samaysan nalalkii ayaana markiiba damiyey qololkii oo dhanna waxa qariyay mugdi dama iyadoona uu qiiqnaa gudahaas ku shareeray biyihii badda ayaana ku soo butaacay gujiskii saddexdii qol ee dambana ilbiriqsiyo gudahooda ayay ku buuxsameen qolka hagidda waxaa soo gaadhay burbur laxaadle waxaana dhashay jaawareer baahsan iyadoo aanad moodid in raggii saarnaa gujiska sidii caruusadaha ama boombalooyinka midba meel loogu tuuray haddana waxay isku dayeen iyagoo xaaladaasi ku jira inay balfahmaan waxa meesha ka dhacay dhowr ka mid a ayaa gacmaha iyo lugaha ka jabay markii uu qaraxu haleelay raggii ku sugnaa munaaradda dusha sare ee hagidda iyo weerarka qaabilsanaa ayaa sallaankii ay saarnaayeen ka soo hoobtay kadib markii uu gujisku si waaliya u gariiray mid ka mid ah raggaasi dhabarka ayuu ka jabay mid kalena qoorta ayuu ka jabay inkasta oo ay dhaawacyadaasi culus qabeen haddana qaar ka mid a raggii ku jira qolka hoggaanku waxay ku guulaysteen inay xidhaan albaabada yaryar ee gujisku leeyahay oo jugtii darnayd ku furmay si ay u yareeyaan biyaha gudaha ugu soo butaacaya laakiinse hal albaab oo xagga dambe ku yaalay ayaa si buuxda u xidhmi waayey biyuhuna si xidhiidha ayay dhinacaasi uga soo gelayeen intii ay dhacdooyinkaasoo dhan daba socdeen gujiska Tang waxa uu sii waday inuu si xawaaro leh hoos ugu sii quuso wax yar kadib gujisku waxa uu taabtay gunta hoose badda isagoona afkiisa horena uu kor u sii jeedo xagal dhan qiyaastii 45 digrii qalabka lagu cabiro qotada biyuhu waxa uu muujinayay 180 fiid ama 55 mitir inuu badda hoos ugu jiro inkastoo midani ay u dhowdahayba oogada sare marka loo eego gujis ahaan haddana waxay qoto ku filan inay ku dhuuntaan raggii ku go'doonsanaa qaybaha dambe ee biyuhu hareerayeen durtadiiba dhimashadu waxay dushooda ku noqotay mid lama huraana laakiinse qaar ka mida badmaaxinta ayaa ku badbaaday qaybaha kale ee gujiska waxaana qaybta hore isugu soo ururay qiyaastii 30 qof markii ay aamuseen in yar waxay dushooda ka maqleen shanqadha hirarka badda taasina micnaheedu ahayd in afka hore gujisku uu weli ka sarreeyo oogada biyaha tani dhab ahaantii caqabad weyn ayay ku ahayd si ay u helaan fursaday ku baxsadaan waxay ahayd inuu gujisku badda gunteeda uu si siman u dhex yaallo halkii uu calaa dhinac u tiirsanaan lahaa nin dhaawac culus qabay ayaa markaasi ku guulaystay inuu furo waalooyinka ama tuumbooyinka biyaha ku soo daaya haamaha hore ee miisaanka gujiska dheelitira si uu markaasi afka horena uu hoos ugu dego tallaabadan waxay u ogolaatay biyaha baddu inay gudaha u soo galaan taas oona culays saartay afkii hore gujiska ilaa uu markii dambe si siman u fadhiistay sagxadda hoose badda inkasta oo go'aankaasi ahaa mid khatar badan haddana wuu hirgalay waxyar kadib Tang waxa uu si siman u jiifsaday badda gunteeda inkasta oo ay xaliyeen dhibkii ahaa in la arko haddana waxa meesha timid khatar kale oo si aayar u soconaysa laakiinse ka khatar badan midii hore iyagoo 180 fiid badda hoosteeda ku xayiran hawaduna ay ka sii dhammaanayso raggii halkaasi ku jiray waxay wajahayeen qaadashada go'aan nolol iyo geeri u dhexeeya waxaana u dhexeeyey xaalkoodu laba miduun inay soo kala galaan inay halkaasi iska fadhiyaan oo ay ku sugaan intuu gurmadoogo imanayo siday u badan tahay lagama yaabo inuu soo gaadho marnaba iyo inay isku dayaan inay baxsadaan iyagoo adeegsanaya hab aan horey loogu guulaysan marka la joogo qotayntaas leeg si ay u baxsadaan waxay u baahnaayeen inay isticmaalaan qolka baxsashada ay loo yaqaano escape chamberka kaasoona ahaa qol yar oo loo sameeyey xaaladaha degdega qolkaasi ma qaadi karayo sida caadiga wax ka badan dhowr nin halkii marba laakiinse waxa uu ahaa albaabka keliya ay ku badbaadi karayaan ee u furnaa inkasta uu xaaladu ahayd mid quusa haddana badmaaxintu waxay muujinayeen deganaan la yaab leh xitaa iyagoo og in kabtankoodii uusan la joogin Richard waxa uu taagnaa dusha sare ee munaaradda hagista gujiska markii uu gantaalku ku dhacayay waxaanu isku tuuray badda dhexdeeda sidaasi daraaddeed mas-uuliyadda hogaaminta baxsashada waxa go'aan ka gaadhay saraakiisha sarsare ee gujiska ee weli gudaha ugu jiray kuwii badbaaday waxay saf u galeen si nidaamsan waxayna isku diyaariyeen inay mid u adeegsadaan qolka baxsashada waxay markaasi kadib ay samayn rabeen ayaa ahayd dhab ahaantii waxaad u halis badan xitaa haddii caadi ahaan lahayd xaaladdu
run ahaantii baxsasho dhaba oo caynkan oo kale ah weligeed hore umaysan dhicin, waxaana xaaladda uga sii darayay markab ilaala ah oo jabaaniisku leeyihiin ayaa dusha kaga wareegayay. marba markii kasii dambaysana waxa uu kusoo dhex ridayay bombooyinka badda hoosteeda loogu talagalay, kuwaasuna kaga gariirinayay gujiskaasi waxyeeloobay. qaraxyadaasi waxay keeneen in gujiska dhexdiisa ay ka ururiyaan urta gubashada dahaadhka fiilooyinka. mid ka mid ah bombooyinkii oo si aad ah ugu soo dhowaatay oo ugu qaraxday agtiisa awgeed ayaa dhalisay dab koronto ah oo ka kacay baytariyada hore ee gujiska. qiiq madow ayaana dhex qulqulay marinada gujiska, heerkulkii gudaha ayaana si xawaaro leh kor ugu kacay, taasuna baxsashada ka dhigtay midaan ilbiriqsiyo gudahood dib loo dhigi karin. markii ay isdiyaariyeen wakhtigu wuu ku yaraaday, hawadii la neefsanayna waxay ku ahayd gabaabsigii ugu dambeeyey. raggii waxay xidheen qalabka neefsashada ee loo yaqaano momsin langis. waa qalab yar oo xabadka lagu xidho oo u oggolaanaya inay si tartiib tartiiba ugu soo baxaan oogada sare ee badda si aysan sanbabadooda ugu dilaacin. cadaadiska isbedelaya awgeed ma jirin badmaaxyo gujiseedoo kale oo weligood isticmaalay qalabkani yar. iyaga ka hor keliya waxay ku soo tijaabiyeen tababaradii ay qaadan jireen. haddaba raggii ka badbaaday taank noloshoodu waxay ku tiirsaneyd qalabkaasi yar. mid bayna u tijaabiyeen tuumbooyinka iyo caagga yare sanka lagu xidho, iyagoona hubinaya inaanay jirin wax daloola oo ay hawadu uga bixi karto. qolka baxsashada aad buu u yaraa, waxaanu leekaayo keliya taa qolalka yaryara telefoonada laga dhex wacdo. hal mar waxaa isku cidhiidhin karayay 4 nin. markaas ayaana albaabada si adag loo xidhayay. biyaha badda ayaana lagu soo diinaya qolkaas yara badbaadada si uu cadaadiska guduhu ula mid noqdo kan dibadda ka jira ee badda. markaasi kadib ayaana la furayay iridda baxsashada, waxaanu qolkan yar si xawaaro leh ugu tuurayay badmaaxiinta biyaha mugdiga ee badda dhexdeeda. intaasi ka hor waxa uu sistamka xaaladaha degdega ee gujisku uu kor ugu tuuray xadhig ishaara ah oo afka hore ku wataa kubad culus oo hawa ka buuxdo si ay badmaaxiintu u soo cogsadaan ilaa ay ka soo gaadhayaan oogada sare ee badda. sidaasi ayuuna ahaa qorshow inuu fulo. badmaaxe la yidhaahdo George Sofkin ayaa isagoo markiisii sugaya oo safka ku jira inuu soo galo qolka badbaadada uu sidaasi dibadda uga soo baxo ayaa qirtay inuusan dabaasha aqoonin. sidaasi daraaddeed halkii uu kuwa kala raaci lahaa waxa uu iskaga soo laabtay oo dib ugu soo noqday sariirtiisii isagoona iska jiifsaday si uu halkaasi ugu sugo dhimashada. kooxdii ugu horreysay oo 4 ka koobnayd waxay baxeen qiyaastii 6dii subaxnimo. 4 kale ayaana ku xigsaday, kadibna 4 kale. koox kasta oo sugisay markeedu waxay ogaayeen in daqiiqad kasta oo dib u dhacda ay u horseedi karto dhimasho qof kastoo gudaha ku hadhay. intii lagu guda jiray jahwareerkaas 13 nin oo qurya ayaa ku guulaystay inay ka baxaan iridda baxsashada. markii haddaba raggii ugu dambeeyey ay sidaasi u gelayeen qolka baxsashada, dab xoogan ayaa ka holcay mid ka mid ah baytariyadii hore gujiska. waxyaabihii hareerooga ka xigoo dhanna waxay u gubinayeen si daran ilaa heer ay gaadhay in rajigii gidaarada ku yaalay oo dhalaalo oo hoos soo dareero. indhahoodu waxay la casaadeen oo la gubanayeen kulaylka iyo qiiqa madow. ugu dambayna kooxdii ugu dambeysay waxay iyaguna soo xidheen qolka baxsashada, waxayna isku diyaariyeen inay galaan badda. laakiinse inay albaabka ka baxaan oo ay badda dhex galaan maysan damaanad qaadaynin inay oogada sare si nabada ku gaadhi doonaan. inaad xadhigga ishaarada aad cogsatid waa si adag u haysatid waxay u dhexaysay nolol iyo geeri. 180 fiid badda hoosteeda midowga ka jiray waxba lagama arki karin. markii ridda laga soo baxo ma jirin qaab ay ku kala ogaan karayeen meesha kor ka xigta iyo meesha hoos ka xigta. markay xadhigga qabsadeen ay raaceen waxa u suurto gashay nasiib wanaag inay jihada saxda ay u socdaan ilaa ay ugu dambaydtii oogada sare ee badda ay ka soo baxeen. laakiinse midowgii iyo buuqii jiray awgeed qaar badan oo raggii soo baxay ka mid ah ayaa xadhiggii ka siibtay, waxayna ku dhex lumeen midowga badweynta. ugu dambaydtiina 13 nin ee ku dhiiraday inay ka soo baxaan gujiskii taang 6 qof oo qura ayaa iyagoo nool soo gaadhay oogada sare ee badda. intii kale waxaa ka adkaaday daalkii iyo jahwareerkii iyo dhibaatooyinkii kale ee ay la kulmayeen intii ay ku soo jireen safarkoodii dheeraa ee khatarta badnaa ay ku soo gaadheen oogada sare ee badda. kuwii badbaaday waxay badda hoosteeda ka soo baxeen oo ay ku soo beegmeen xilli ay qoraxdu soo baxaysay iyagoona isticmaalayay qalabkoodii neefsashada ee momsin langiska si ay u badbaadaan. way badbaadeen laakiinse geeri bay qarka u saarnaayeen. dhanka kale 87 ka mid ah badmaaxintii iyo saraakiishii ay wada shaqaynayeen
ayaa geeriyooday. qaarkood waxay ku dhinteen qaraxa laftarkiisa, halka inta kalena ay ku dhinteen iskudaygii baxsashada. dadka dhintay waxaa ku jiray badmaaxe 15 jira oo la odhan jiray Ruben McNeil Rayford, waxaana la rumaysan yahay inuu ahaa qofkii ugu da'da yaraa ee Maraykanka ahaa ee ku dhintay furimaha dagaalka intuu socday dagaalkaasi weyne. ragga intoodii soo hadhay maysan helin wakhti ay ugu baroortaan saaxiibadood ama xitaa ay ku mahadiyaan in iyaguna dhimasho ka badbaadeen. waxay joogeen meel ka fog beriga, waxaana ku hareeraysnaa maraakiibta cadowga. markii waagu ugu baryey marinka Formosa, badda dusheedu waxay ahayd mid aad u degan. raggii badbaadina waxay ku dhegsanaayeen jajabka gujiskii oo biyaha dul sabaynayay, iyagoona indhaha u wareejinayay jiha kasta si ay u helaan bal cid u soo gurmata. balse nasiib darro waxa keliyata ee u muuqday waxay ahaayeen maraakiibta cadowga ee Jabaan. barqadii dambe markab dagaal oo Jabaan leedahay oo loo yaqaano B-34 ayaa durtadiiba arkay raggan badda ku dhex jira. badmaaxiintu waxay isku dayeen inay isqariyaan oo ay dhaqdhaqaaqa joojiyaan, iyagoona rajaynayay inaan la dareemin. laakiinse markabkii ayaa soo leexday, wuxuuna ku soo jeestay dhankooda. markabka dushiisa waxa saarnaa dad ka badbaaday maraakiibtii uu gujiskooda Tang uu quusiyey maalmihii u dambeeyey. qaar ka mid a badmaaxiintaasi Jabaaniiska waxa si xun u gubay uumiga iyo dabka. wejiyadoodu waxay ku xidhnaayeen faashado, maqaarkooduna gubasho darteed ayuu la bararsanaa. midaasi awgeedna waxay u muuqdeen kuwo ka baxay suuraddii bini'aadamka lagu yaqaanay. markaas kadib doon yar ayaa laga soo diray markabkii B-34. raggii ka badbaaday gujiskii Tangna waxay arkayeen nimanka hubaysan oo doontoo soo wada dhinacooda. markii ay ciidamada badda ee Jabaanku soo gaadheen, ujeeddadoodu markiiba waa caddayd. raggii badbaadiyey xoog ayaa doonta loogu soo tuuray, dabadeedna si naxariis la'aana ayaa loo garaacay oo looga daalay. mid ka mid a raggii Tang ka badbaadiyey ayaa horeyba isagu u liitay, waxaanu la tacaalayay neefsashada oo ku adkayd sababtoo ah xilligii uu badda gunteeda ka soo baxayay ayuu biyo badan liqay. laakiinse beddelkii ay caawin lahaayeen raggii qabtay waxay dib ugu tuureen baddii, waxayna ka kaxeeyeen doontii iyagoona uga dhex tegey inuu halkaasi ku hafto. markii haddaba 5 nin kale ay gaadheen markabkii B-34 waxay halkaasi ugu tegeen 3 sarkaal kale oo iyaguna gujiska ka badbaaday, kuwaasuna ku jiray kabtankoodii Richard. taasi macnaheedu wuxuu ahaa in 87 nin ee saarnaa gujiskii Tang intaanu qorxin ka hor ay ka badbaadeen oo keliyata 8 nin. markii dhammaantoodba lasugu keenay sagxadda markabka, jirdilkii iyo jugtii ayaa halkaasi uga sii socotay. dhoomihii iyo qalabkii ay wateen oo dhanna waa laga furay raggii, gacmahana dibdib ama gadaal ayaa looga xidhay. kadibna waxaa lagu khasbay inuu muddo 5 maalmood ah, hadda waa muddo 5 maalmood oo dhana iyo 5toodii habeenba ay sagxadda sare ee birta ee markabka ay fadhiistaan, iyadoo ay dhacayso qorax aad u darani. waxaana muu jirin biyo ay dhuunta ku qoyaan iyo cunto toona maysan haysan. kulaylkii darnaana waxa uu gubay maqaarkooda, waxaanuu dhabarkooda iyo garbahooda ka soo saaray finan waaweyn oo gubashadu ka soo saartay. shaqaalihii markabka saarnaa sidoo kale way ku jeesjeesayeen, iyagoona mararka qaarkood timaha iyo dhigaha soo jiidayay si ay dhigaha iyo sanka uga geliyaan sigaar shidan. markii markabkii B-34 uu ugu dambayntii soo gaadhay dekedda Formosa berigii hore waxaa loo yaqaanay halkii imika Taiwan tahay. askartii Maraykanka waxaa lagu dhex kaxaynayay jidadka iyagoona gacmaha laga xidhay, madaxana loogaga daday maro madow. dadkii rayidka ahaa ayaa u soo baxay inay daawadaan. carruurta, waayeelka iyo weliba dumarkuna waxay ku garaacayeen ulo intii ay jidka sii marayeen. habeenkii waxa lagu dhex tuuray maqsin yar oo dhulka hoostiisa ku yaala, halkaas ayayna dhulka iyo ciidda ka baadhbaadhanayeen baradho qaydhin si ay u cunaan. tani waxay ahayd cuntadii ugu horreysay ee afka saareen muddo ku dhow 7. maalintii xigtay waxaa lagu raray markab kale oo u socday dalka Jabaan. markabkaasi waxa uu siday sonkor. badbaadayaashii ka badbaadiyey gujiskii Tangna waxa lagu hayay qaybta hoose ee markabka oo kulayl iyo cabur fara badan lahaa. safarkaas oo dhanna lama siin haba yaraatee wax cunto ah ama biyo ah oo xusid mudan. markii ay Jabaan gaadheen, raggii badbaadiyey waxay hore u soo mareen silix ka badan intuu qof caadi ah uu qiyaasi karo. laakiinse weli dhibaatadu halkaasi kumaysan dhammaan. waxa ku sugayey xeryaha maxaabiista ee Jabaan ayaa ka sii xumaa wax kasta oo ay hore u soo mareen. meeshii ugu horreysay ee la geeyey waxay ahayd xero qarsoodiya oo dembi baadhisa oo ku taala Ofuna. goobtaasi waxay ahayd midaan xitaa khariiradaha ka muuqan. dowladda Jabaanna si rasmiya umaysan qiran jirinba jiritaanka meeshaasi. maxaabiista halkaasi ku jirtayna looma diiwaangelin jirin inay yihiin askar la qabtay.
waxa laga xayuubiyey magacyadoodii iyo xuquuqdoodii. ilaalada xeraduna si toosa ay ugu sheegeen raggii badbaadayaasha ahaa inaan loo aqoonsanayn maxaabiis dagaal, balse loo arko inay yihiin dembiilayaal dagaal. sababta ay u cogsadeen midaasina ayaa ahayd in gujiska Tang uu weeraray oo uu quusiyey maraakiib rayida, sidaasi daraaddeedna loo tixgelinayo inay yihiin gacan ku dhiglayaal. dabcanna wixii intaasi ka dambeeyey sidii loola dhaqmiyey badbaadayaashaasi Tang waxay si dhaba ula jaan qaadaysay eedaasi loo soo jeediyey intay leeg tahay. ragga waxa lagu hayay go'doon buuxa, waxaana laga mamnuucay inay midba midka kale la hadlaan ama xitaa qof kaloo xerada ku jira ay xidhiir la sameeyaan. waxaa la isku siin jiray cunto aan ka badnayn tan qofka keliya loogu talagalay. haddii aanay jawaabahooguna aysan ka farxin su'aalaha ay ilaaladu weydiinayaan, si xun ayaa loo sii garaaci jiray. markii ay soo gaadheen Oofuna waxay hore u ahaayeen kuwo gaajaysan oo haraasan. toddobaadyo yar gudahoodna waxay ku noqdeen laf iyo maqaar, timuhuna way ka daadanayeen, ilkahooduna way dabceen sababo la xidhiidha xanuunka loo yaqaano iskarfiga oo ku dhacay awgiis, kaasoona ka dhasha nafaqa xumada. waxa kale oo ku dhacay cudurka loo yaqaano beriberiga, kaasoona ka yimaada yaraanta fitamiin B-ga. cudurkanna waxa uu keenaa miisaanlimid xaddhaafa, xanuun gacmaha, tamardari iyo weliba xitaa wadnaha oo shaqada gaba. Richard oo ahaa mid ka mid a taliyaashii ugu sumcadda iyo ixtiraamka badnaa ciidamada badda ee Maraykanka, maalmihiisii oo dhan waxa uu ku qaadanayay qol yaroo madow oo aan daaqad lahayn. waxa uu noqday nin aad u taag daran ilaa heer uu gaadhay inuu istaagu dhibo. dabayaaqadii bilowgii 1945 dhammaanba maxaabiistii gujiska ka badbaaday waxaa loo wareejiyey waqooyiga xero ku taalay oo la odhan jiray Omori oo ku taalay jasiirad ku dhex taalay gacanka Tokyo. xilligaasi waxa uu ahaa xilli jiilaala, qabowguna waxa uu ahaa mid aad u daran. maxaabiista waxa lagu khasbiyey inay cagacadaan barafka ku dhex socdaan. qolalka ay deganaayeenna waxay ahaayeen buulal yaryar oo qabow oo daloole leh oo ayna dhexdoodana ka buuxaan injiri. cuntada waxaa la siin jiray 2 jeer maalinkii, badanaa waxay ahayd jabcad ama baaquli yaroo bariis cada oo lagu daray shaciir. haddii nasiibka ku xumaadana waxay heli jireen oo keliyaata biyo kulul oo ay dul sabaynayaan dhowr xabo oo bariisahi. ilaalada xeradu weli waxay ula dhaqmayeen si ka hoosaysa bini'aadantinimada. garaacista la garaacayo xilli waliba waxay u ahayd wax caadiya, mararka qaarkoodna waxa qofka loo garaaci jiray wax yar oon waxba ahayn oo uu sameeyey, sida inuu madaxiisa kor u qaaday ama inuu hareeraha fiiriyey isagoo aan fasaxaysan. muddo kadib maxaabiistii Maraykanka ahayd waxay barteen inay iskaabiyaan, madaxoogana hoos u dhigaan, codkoodana sidoo kalena hoos u dhigaan. wax yar oo kasta oo loo arki karayay inuu yahay madax adayg. waardiyaasha Jabaaniisku waxay ku abaal marin jireen durtadiiba garaacis ba'an, xitaa haddii aad isku daydid inaad sharaftaada dhowrato. ilaaladu waxay u arkayeen midaasi inay tahay faldambiye dowladda ka dhana. bilooyin badan ayayna sidaasi ku jireen iyagoo wax wari ka hayn meel ka baxsan xayndaabka xerada Omori iyo dunida waxa ka dhacaya. inkasta oo ay maqlayeen shanqadha duqaymaha fogfog ee ka socota magaalada Tokyo, haddana raggu wax fikrada kamaysan haysan halka uu dagaalku marayo iyo cidda guulaysanaysa midna. laakiinse bishii August 1945 duqaymihii ayaa si lama filaan ah u joogsaday. habdhaqankii ilaalada xerada ayaana isbeddel weyn ku yimid habeen qura. waxay noqdeen kuwo aad u aamusan oo ay ka muuqato hubantin la'aan baahsan iyo cabsi. maalmaha ka mid ah ilaaladii badankooda ayaa meel ay jaan iyo cidhib dhigan la waayey. waardiyi yara ee ugu dambeeyey ayaa u sheegay inuu dagaalku dhammaaday. xilligaasi laga bilaabana maxaabiistii ayaa gacanta ku dhigay maamulka xerada. toddobaadyo yar gudahoodna waxay dushooda ku arkeen diyaaradii xulafada oo u soo daadinaya saaxiib cunto iyagoona dhuubnaaday, xanuunsaday, nafaqadaro ba'anna ay lafaha qalqalloocisay. ayaa loo qaaday dhinacaas iyo jasiiradda Guam si loogu soo daweeyo, ilaa iyo ay markii dambe ay ka xoogaysteen oo ay dalkoodii dib ugu laabteen. 8 nin ee u dhabar adeegay silacaas iyo saxariirtaasi tan iyo markaasi la qabtay kadib dhammaantoodba waxay noqdeen qaar si mucjiso leh uga badbaaday dhacdadan. mid kasta oo iyaga ka mid ihi waxa uu intii noloshooda ka adhsanay dhabarka ku siday nabro ah, kuwo jidhkooda ka muuqda iyo kuwo qalbiga ku qarsoon oo aan marnaba bogsoonaynin. weligood maysan ilaawin shanqadha gantaalkii tuurbiidaha ee gujiskoodu ganay ee iyaga dib ugu soo noqday ee ku dhacay agagaarka qolka hoggaanka gujiska iyo mugdigii geerida u ekaa ee ku xigaya badda. sannado badan kadib weli waxaa maskaxdooda ka dhex guuxayay culayskii iyo wixii ay indhooda ku soo arkeen iyo raggii badnaa ee asxaabtooda ahaa ay ku waayeen badweynta Basifiga bishii Oktoobar 1944.
inkasta oo Richard loo aqoonsaday geesi weyn haddana aad bay u yarayd inuu ka hadlo wixii dhacay. markii la guddoonsiiyey biladda ugu sarraysa ee geesinimada lagu bixiyo ee loo yaqaano Medal of Honor oo lagu mahad celinayay dhiiranaantiisii iyo hogaamintiisii, waxa uu ku aqbalay magaca dhammaanba shaqaalihiisii, isagoona sheegay inay ahaayeen raggii ugu geesisanaa ee uu abid nolosha ku arko. burburkii gujiskii Tang weli waxa uu yaalaa gunta hoose maragga Formosa, meel keliyata lagu sheegi karaya uun maanta qiyaas. haddii aad ilaa halkan ila soo gaadhay, aad baan kaaga mahad celinaya wakhtigaaga qaaliga. waxaanaynu soo gaadhnay saaxiibayaal dhammaadkii muuqaalkiinii maanta. waxaan rajaynayaa inaan kugu arki doono qisada xigta.